dadka waxa ugu daran dadka ka abaaruba dhinaca maanka amba maskaxda waxaanan idhaahdaa anigu waxaan u bixiyey khumaasiyatu tasaxur shanta qaybood ee abaarnimadu qofka ay kaga dhacdo ta ugu daran waa 5 nooc weeyaan amba waxaan u bixin karno abaarnimo uun ma ahine lama degaannimo tasaxur lama degaannimo maskaxeed hadday kugu dhacdo waa mushkilad aad u badan waxaa loo yaqaano atasaxur alcaqli waxaa taa ka iyadna lamida inay kugu dhacdo atasaxur alqiyami haddii aad weydid valeero iyo qiimado qiyam aad had iyo jeer wax ku socotid oo iska badbadileen oo had iyo jeer ku miisaan marka aad weydid waa problem marka waxaa kaloo jira atasaxur alfikri dadku markay aqoon badan ayna lahayn waxaa ku dhaca waxa loo yaqaano abaar dhinaca curinta fikriga ah yacni waxa weeyaan wuxuu noqdaa sida gaari faraska Ethiopia iyo dhulka ka jira ee marka faraska la wado laga xidho dhinaca hareeryaha oo dhan uu arkayo oo wax kale arkayn bini aadamku saasay noqdaan marka taasina waa nooca loo fikiro markay ka baanaato tasaxurka afraad waxaa la dhahdaa waa abaarnimada ku dhacda dhinaca siyaasadda tashanaadina waxa weeyaan waa ta ku dhacda dhinaca manhajku waxa weeyaan habka wax loo arko ee wax loo baaro intaba waxaa ka aaba maskaxda oo laga abaaroobo